السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ولا ليلة سودا وادا maanta waxaan halkan idinkula wadaagayaa laba gabdhood oo aad ku dayan kartaan oo akhyaarta kanaalkeena ku xidhan kana mid ah macaamiishaydii oo intay wadankooda yimaadeen mashaariic ka hirgeliyay shaqo abuur sameeyay mashruuc bilaabay ganacsi u shaqaynayo iyaga oo dalka dibadiisa jooga qayb ka mid ah ganacsi dakhli soo galayo oo stream of income ah oo lacagtoodii u rogrogaya ay sameeyeen hirgeliyeen waxa jirta walaalayaal maxaa ka wanaagsan adiga oo dalka gudihiisa ama qurbaha jooga uu ganacsi ku shaqaynayo dakhlina ku soo saarayo bishii xataa uu wax noloshaada ku soo kordhinayo labada gabdhood walaalayaal marka labada mashruuc ay hirgeliyeen ayaan halkan aan idinkula wadaagayaa qurbiga ama dalka dibadiisa ay ku nool yihiin dad badan oo dalka gudihiisa jooga mashaariicda la midana way sameeyeen insha Allah walaalayaal intaan guda gelin waxa jeclaan lahaa marka koowaad inaad like saartid si uu dad badan u sii gaaro gabadha koowaad walaalayaal waxay timi xilli samara oo xagaaga ah waxay wadanka ka hirgelisay mashaariic beero greenhouse ah beeraha casriga ah ee qudaarta dhaadheer ee indeterminate-ka gudahooda lagu beero saad la wada socotaan geedaha dhaadheer ee 3 mitir 4 mitir 2 mitir iyo barka gaaraya intaasoo kiilo oo qudaara ay soo saarayaan marka gabadhaas waxay sameysay walaalayaal 4 greenhouse oo cabirkoodu yahay 840 ayaan la dhisnay ka sakariye ahaan oo aan la hirgelinay greenhouse-yadaas isla markiiba waxa loo qabtay shaqaale diirka ayaa waxa looga dalbay wadanka Kenya waxa loo sameeyay beertii nursery-ga ahayd ee qudaarta ama dalaga lagu beerayay waxaan isla markiiba ala guri lagu talaalay 1800 oo geed oo xabuub tamaandho yaanyo hadba saad u taqaanida afarta greenhouse ba way shaqeeyaan oo waxa ku beeran qudaartaas hadhowto marka laga soo guro waxa la keenaa magaalada iyadoo marka ay toos si joogto ah u qaataan qaar ka mid ah hoteelada cuntada ama makhaayadaha hadba saad u taqaanid gabadhi marka mashruuca markay hirgelisay oo dhistay oo shaqaalihii u qabatay oo siirarkii qudaartii nafaqooyinkii wax kasta ay u habaysay oo ganacsigii ka shaqaysiisay waxay isaga laabatay qurbaheedii iyo dhulka ay ka timi waa ganacsi shaqaynaya oo dakhli soo saaraya oo macaamiil leh oo wax rogrogaya oo bari ka maalin sii kobcaya oo beer banaanka hadda lagu kordhiyay sidoo kalena qaybo badan oo horumarin ah ay ku socoto oo mashruuca gudihiisa ah marka walaalayaal qofku wuxuu sameyn karaa in uu intuu lacagtu ay meel dakhliga yar u ooli lahayd ganacsiga diinteenu way amaantay barakuna leeyahay inuu wax isku dayo oo aanu walaacin intuu go'aan qaato macaamilna uu helayaa ilaahayna u barakeynaya oo waa xalaaleeyay marka walaalayaal ganacsiga koowaad ee gabadhaasi hirgelisay oo dalka dibadiisa ku sugan oo mashruuceeda mashaariicdan ka warhayno aan booqono kamida ayaa saa u shaqeeya dalka dibadiisa ku sugan tahay mashruuceediina macaamiil buu leeyahay oo uu shaqeeyaa oo dakhli ayuu u soo kordhinayaa waa gabadha koowaad oo mashaariicda greenhouse-yada ama beeraha casriga ay ka hadalno playlistigan kaga hadlay halkan ayaad ka daawan kartaan sidoo kale qof kasta oo raba in greenhouse la dhiso oo dadkii gaar ahaan PDF-ka greenhouse-ka gatay ama hore u iibsaday oo dhan aniga sakariye ayaa ka caawinaya si mashruuca gabadhaas oo kale ay u hirgelin lahaayeen qof kasta oo diyaara khidmad yar ayuu iska bixinaya ana insha Allah ka caawinaya in aan shaqaalihii aan u keeno qaabkii waxyaalihii sirarkii aan la dalbo mashruuci oo dhan aan la fadhiisiyo idanka Ilaahay gabadha labaad marka walaalayaal iyaduna waxay sameysay oo macaamiisheeda kamid ahayd waliba macaamiilihii ugu horeeyay kamid ahayd waxay hirgelisay poultry farm ama beer digaaga doorada hadba saad u taqaanid ta ukunta ama beed ka dhasha lagu xanaaneeyo gabadhaasina waxay digaag badan ay soo gadatay oo mashaariicdii digaaga ay ka hadlaynay kamida oo ilaa 2,000 oo digaag ku dhow digaagaasi marka walaalayaal gabadhaasi nin baa uga shaqeeya waxay calafkii maalintii waxa la siiyaa 50 kiilo ilaa kintaal hadba sida ku dhow oo Ethiopia laga soo gado oo layer feed ah ama loogu talagalay digaaga beedka ukunta dhalaya in la siiyo
labadii biloodba daawooyinka la siiyaa cudur aad Newcastle la dhaho oo digaaga u daran ayaa si fiican maartay looga daaweeyaa laakiin wax soo saar badan maalin kasta gabadha ilaa 1300 oo ukun ama beeda ay digaagaasi dhalaan marka digaagaasi hadhowto ukuntooda ama beedkooda waxaa la keenaa magaalada ayaa la keenaa waxaa toos u sii qaata meheradihii supermarketyadii hoteeladii cuntada maqaayadihii oo si joogto ah ayaa loo iibsadaa sidoo kale gabadha laftirkeeda mashruuca iskale waxay ku nooshahay dalka dibadiisa oo dadka aan anigu xiriir kala leeyahay ee u maamula ukunta suuqa geeya ee sii iibiya waxay ku leeyihiin bishii intaas oo dakhliya ayaa ka soo baxa intaas waliba hal mid beedkaasi ama ukuntaasi kuma haro kuma fadhiisto isla markiiba hore ayaa laga gataa oo dadka qaata hore ayay ka sii wada iibsadaan waxa ay ku nooshahay shaqo abuur ayay samaysay digaagii shaqaale kooban ayaa ka shaqeeya daawadiisa caafimaadkiisa nafaqadiisa wixii oo dhan ayuu haystaa wixii oo dhan markuu haysto dakhliga cuntada la siinayo iyo shaqaalaha marka laga reebo dhaqaale fiican oo faa'iido ayaa ka soo hara waana ganacsi shaqeynaya oo dakhli soo saaraya go'aan bay gaadhay mashruucii bay hirgelisay way maal gelisay dalka dibadiisa ay ku laabatay sidoo kale wixii dalka ayuu markaa uga shaqeynaya marka waxaad dareemi kartaa walaalayaal mashruuca digaaga isagana qalabka loo gadanayo iyo shirkadaha laga soo iibsanayo iyo cilmi ahaan xataa shaqaaluhu waxay qabanayaan cuntada la siinayo qaabka beerta loo maamulayo dhulka loo dhisayo digaaga hadda kan oo kale ukunta dhala 360 xabo oo beeda ayuu ka cad hadda dhala sanadkii labada sano ugu horeeyay digaagu ukunta ugu fiican ay dhalaan gugana waxaan dhan ay ku qoran yihiin oo qofkii ma artay macluumaadkii oo dhan uu ka akhrisan karaa marka WhatsApp-ka koodna aad ka soo dalban kartaan gabadhaasina ganacsi iyo shaqo abuur ayay samaysay dakhlina waa u rogrogmaa hawsheediina waxa weeye iyadoo dalka dibadda joogta ayay waxtar wadankii uu ka soo galaya marka walaalayaal waxa ugu muhiimsan aan fariinta ku soo gudbinayo waa inaan ku dhiirigelino dadkii oo qofkii intuu go'aan gaaro qofkii ma artay dadkeena waxa ku yar xiisaha isaga badan go'aan gaari maayo maanta oo dhan bal i caawi bal maxaad u malaynaysaa bal bisha ka bacdi bal waa soo tashanaya qofkii go'aan ba gaari maayo hadhowtana wixii isbuuc ka bacdi uu ka xiisa dhacaya nabi sallallahu alayhi wasallam iyo diinteena waxay noo sheegtay ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu noo sheegay fayda azamta fatawakkal ala allah inna hadad go'aan yani aad gaadid inaad ilaahay tala saaratid oo wixii aad ku dhaqaaqdid marka walaalayaal waxaan rabaa in muuqaalkan aan dhiirigelin uga sheego dhalinyarada hawsha ila wada ama tiimamka aan wada shaqeyno baan xalayto barnaamijkan aan kale aan ka wada hadlaynay oo ah war qofkii hawshan hirgeliyay ma sha Allah isagoo dalka dibadiisa ku sugan ayaa dalkii waxtar wax soo saarka soo galaya oo shaqo abuur isna sameeyay isagiina stream of income dhaqaale meel gaar ah ka caawinaya oo soo xiroonaya marka insha Allah walaalayaal dadka ganacsatada dalka gudihiisa jooga iyo dalka dibadiisa joogaba way ku dayan karaan mashaariicda yaryar qudaartii waxa guri kasta looga baahan yahay cuntada lagu darsanaya sidoo kale ukunta ama beedka oo kale iyadana gurigii baa lagu isticmaalaya meheradihii hoteeladii baa lagu isticmaalaya supermarketyadii baa lagu gadanaya waxyaalaha joogtada ee baahida nolosha kamida ee bini'aadamku cunto iyo nafaqo kama maarmo inaad ganacsiyada agri businesska aad xooga saartaan baan idinku dhiirigelin lahaa waxaad nagala soo xidhiidhi kartaan lambarka xafiiska Somleaf ee xafiiskayga oo xogayahayga ama managerkayga guud oo idin qaabilayo oo insha Allah wixii greenhouse ah halka uu idin ka caawinayo sidoo kale qofkii mashruuc digaag rabana muuqaalka aan ka hadlay muuqaalkan si gaar ah u soo daawado oo ku soo insha Allah maartay hoos sidoo soo fahmo soo daawado laba beeleyste oo digaaga iyo greenhouse-da ku saabsan ayaan idinku taagaleynaya fiidiyogan labadaaba soo daawada WhatsApp-ka hoosena insha Allah waad ka soo wixii insha Allah rabtaan wixii la talina ayaad ballan qabsanaysaan oo aan kala shaqeynaa waan la hirgelinaya walaalkiin Sakariya Cabdullaahi Ali salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh